kulanti waxaan u wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka oo ku saabsan ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doode oo dhawaan loo calaamad saaray ugaasnimada kaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay deegaano oo dhowr bilood kadib calaamasaadkiisii uu ku tagay dhammaan amaba inta badan ee deegaanada gobolada Awdal iyo Salal ee Soomaaliland ugaaska ayaa deegaanadii iyo degmooyinkii uu tagay si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana meelaha aad barnaamijkan ka arki doontaan ee ugaasku uu ku tagay booqashada lagu soo dhaweynayay kamid ah Ceelgaal Aysha Caddo Saylac Lughaya Qoonijeed Boon Karuur Geerisa iyo deegaanada la xiriira degmooyinkaasi iyo magaalooyinkaasi iyo deegaanadaasi aan soo sheegnay barnaamijkan gaarka ah arintaas ayaynu ku eegi doonaa waxaanu leenahay daawasho wanaagsan salaadiinteena maqan adeeradeeya waxaan leeyahay isku yimaada soo hida dadkiina wax u qabta oo ka fikira horumarka iyo midnimada aan wadno ka fikira لكن هو هالدولة إن جسمه وهاي وإنه قانتاي أرضا بابلن قادة يدكين الدبد ويكون يديسين إن يدك ذا الحاكين وقدسان الشعب كأنه كفاي جيسو هو حلقته رمر لقاله ينكفكرنا جديد كين لسمايو دكين ومن مدي تاسي كينيسا رمر تاسي موتا ولا اليوم مركا الاسكيل عليه شيطان بديدن ده من مدى شيطان قال اسكيل عليه وكي النبي آدم يحاول وكسر صار الجنة شيطان كي مركا إن جمع هريه وحقنا وشوفه مركا الله اسكيل عليه ولا الله اسكيل عليه إلهي بني بريء ونيت عيني يا ربيعان الله ينسيه أبارة الله ينقذ القاضي لكن أبارة حيث إلهي قد القاضي إلهي عافمة ينسيه إلهي موافقية من الله ينسيه بس بكرسونه إلهي وحن كبرني وانا جعل إنه إلهي نقدم ورمرك إنه إلهي نوبر أولادنا إلهي نوبرك أيو ثمك الله نوبرك أيو دمان تنبا إلهي قلبي إنه مثل يحقني إسكاو حقبصو ومدينا مليسي إسكاو حقبصو وعويان ومن نمو إنتاسو سكولا كان جنبورنا وإسكاو حقبصو لودسي إيكا ميع عليه هو دنتي ميع كينا الله ونحرسو جنبي ألاقي هو جنبي ألاقي هذا أنت أودابو وحيرتاي وحيسوكين كيني مانتا إن إنه أكبر كيسانو وأكد عايزانو وياسك كيسا يال يطبنادا وياس يلي مياه كتوغا سامرون كتوغا عن جعلهاي إن وما يدعيه ماشي ولادك مريو ورافو وهدو وحمان تيمي ودنا وقاس كيقول بيلها قد كورسي وقاس عبدالرشيد وقاس روبلي وقاس دوتي ويقول هذا فينا مجد دوما وقال وحوية فان وحنا يلعبك قلاد ووح في عم بالغويلها فعنيدي
maanta way nooga muuqataa taasi imakana laga guddooma ilaahay hayni wanaajo walaalayaal war xurmatiisinku wax badan buu sheegaa war waxaan inii wadnaa waa ugaaskii 19aad eenu lahayn asalka maahin wax cusub oo inii samaynay maahin ku duulimaad oo dhan inaga qaadanaya maahin ku inacaayaya maahin ku wax inagu samaynaya waa ku midnimadeennii ku soo noqonayso walaaltinimadeennii baa ku soo noqonaysa wanaaggeennii baa ku soo noqonaya bismillaahi kariim waxaan rabnaa rag iyo dumar yar iyo waayeel inaan gacmaha isqabsanno taa baan ugu talagalaynaa horumarkaan kaga qayb gelaynaa dhulkeenna midnimadaan ku ilaalin karnaa somalilan wax kaloo aan ku ilaalin karnaa ma jiro ummad iyaduba kala jeedi waxba ma qabsato midnimadeennii ilaahay noo soo celiyo midnimadeennii ilaahay noo soo celiyo wanaageenna allah istuso xumaanteenna allah kala qariyo dalka dadkaan ku nool lahayna farriin baan u diraynaa wanaagun baan inii wadnaa walaalnimaan inii haynaa wanaagga inukuna nagala qayb galaan leenahay halkan inigu soo inigu keenay maanta ugaaskii gadabuursi ugaaska selel iyo awdal ugaas cabdirashiid ugaas roble ugaas toodiba iyo wadaanaga guddooma waxa weeyaan ugaaskani waa ugaaskii 19aad ee beelaha selel iyo awdal ay lahayn jireen Itoobiya Djibouti meel kasta oo dadkiisu joogaba isaga uu ugaasa waxaan maxamed celinayna marka waraysa alla noo barniyo inuu khayrka waafajiyo saddexda madaxweyne saddexda dal ee dadkeenu ku nool yihiin madaxweyne siinayo madaxweynaha madaxweynaha baa ka nahay Ismaaciil Cumar Geelle yama ولا ريال وحن إني شاقنا ولا ريال دعائي خير بانني ونا ولا ارتني بانني ونا مني بانني ونا إني كنا نقا قدونا ولا ارتني بانني وحن كجرتا اسخاب دارس اسفحن وحوضا قرصي ولا ارتني بانني كجرتا ماشي أنه وحن لو قبع هيهي مني بانو بحن هاي waxaan idinka mahadnaqaynaa sida ballaadhan ee idinkoo saylac jooga cadceeduna kulushahay aad ugaaskiinna u soo dhowayseen ayaan idinka mahadnaqaynaa tawbarka aad baan idinkaga mahadnaqaynaa waddaniyadda idinku abuuran dhiiggiinna dhaqaaqsan fikradihiinna markaan eegay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waana ta looga baahan yahay cid waloo magaca leh ugaasku ma aha ku hadda yimid waa kaa aad ka wada sheekaynaysaan taariikhda intaas iyo 20 ugaas een cid la facihi jirin sidaad u garateen baan aad idinkaga mahadnaqaya haddaad reesa ilaahtiin mahadnaqa waxaan ku darayaa isagu wuxuu idinla socdana isagaa idiin sheegi annagu isagii baan idiin keennay ninba intuu doonee kala ha hadlo doorle oo ugaaskoodii oo garanaysaan baan inii wadnaa iyo nabadgelyo iyo sharaf inaguna nabadda iyo walaalnimada iyo ku dadaala iska daaya qosoqosagan iyo waxa yar inaga muuqda iska daaya intaa waxaan u celinayaa booliiska iyo nabadgelyada iyo cidda meesha degan inta
kale walaalayaal waxaanu nahay safar ugaas dadku baranaya annaga qudhayadu gobollo badan baana naargoolkuxunaawada liyo sila ka mida kolkaa wuxuu socdaa ugaas waxa weeye inuu dadkiisa barto uu dalka barto oo wixii waddanka laga qaban karo uu ka qabto uu wargeliyo walaalayaal khayrka iyo nabadda iyo barwaaqada iyo rasiintaasa la soconaa ugaaska ku galbinaynaa wax kaloo mashaakili ma jiraan maanta waxay noo yimiday waxaanan kasbi iyo ijtihaad hanan lagu helin ugaaskeenii bay noo yimid waa fadxul maka oo kale faqriga waxayna yidhi ummadnimadeennii halkay ku xidhnay wadiifatu alcaaliya laa tanaalu bilkasbi walijtihaad wadiifada kasbina laguma gaadho ijtihaadna laguma gaadho dadaalna laguma gaadhee ilaahay baana siiyey intaasaanu sugaynay markaa waxaan ilaahay waxaan ilaahay haddaba waxa weeyaan nasiib wanaag haddii had garateen taa boqolkiiba boqol iyaan lagu salaamaya ugaaska dibad iyo gudo iyo Itoobiya iyo Boorama iyo dhinac walba waa laga soo dhaweeyay wuxuu maaragtay wuxuu macsuum ka yahay la tacaalood burco hargeysa oo adduunkooda ugaas yahay ugaasku halkan buu idinku yimiday wuxuu u socdaa dadweynaha dalka Somaliland iyo inta la dirsan in uu duceeyo soona booqdo soona barto dadkiisa iyo dalkiisa isku mida dadku waxa weeye awdal iyo salal Djibouti Somaliland iyo Itoobiya intaba waa ugaaskoodi waxaan soo dhawaada soona dhaweeya Allah waa isku caws waa isku ceel waa isku biyo waa isku diin waa isku dad ma kala maarmaan meel loo kala hagi maaye ha midoobaan baan leenahay ha isku heshadaan baan leenahay ha isku noqdaan baan leenahay ugaaskuna uu u socdaa waata siyaasad uma socdo kala faquuqid uma socdo kala farfarid uma socdo dadweynaha saddexda gobol waxaan leenahay waa ummid waanu midayn hadday duco tahay hadday tala tahay hadday horumarin tahay intaba wuu ka midaynaya waxaan leenahay sidaa idinkuna iimaansada ku soo dhawaada aqbala halkan waxaan ka salaamayaa ugaas cabdirashiid ugaas robloogaatoodii aniga oo ka socda jaaliyadda Djibouti ururka jaaliyadda ka socda Djibouti waxaan salaan uga sidaa ugaaska dhammaan dadkii reer Djibouti ee halka degana waxaan ku salaamaynaa balayni salaan maartay aad u wanaagsan iyo loo soo diraya ku soo dhawaado ugaasku waxaan salaamayaa dadka reer Seylac ee maanta si fiican soo dhaweeyay dhammaan iyo maartay aad baan u faraxsanahay innaga oo taagan horta waxaan ka afeef dhiganayaa cadceed kulul oo ilaa soo kordhin aad muraaqoonayseen oo taagnaydeen ayaan ka afeef dhiganayaa gaar ahaan inta xagga cadceedda ka soo jeeda hadda annaga xooga hadhaan fadhinaa noo samaysan khayr ilaahay dushiiyo aad baan dhammaantiin reer Seylac oo idinku mahadnaqayaa waxaa farxad ballaaran maanta aniga oo magaalada Seylac oo aan muddo dheer naftaydu ka maqnaa aan iguna soo dhaweyseen ugaaskeenii sharafta lahaa oo isaguna muddo dheer inaga maqnaa magaalada Seylac ee taariikhda aad nagu soo dhaweyseen waxaan aad iyo aad maxaan ku idhahdaa ugu faraxsanahay in aan fadhino masaajidkii harkiisii masaajid Sheekh Ibraahim Saylici ee taariikhiga ahaa halkaa kalena uu nooga soo horjeedo masaajidkii qiblateynka ahaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaynu baddeena quruxda badan iyo cadceedda madaxda san maalinta qurux badan si fiican u soo daawanayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilmi sheekha dhameeyo ninkii caamaha iyo caasiinta hallowdayba dhibbatiisu cuslayniyo awladiisa iloobiyoon la isku ciidmi karaynimo من كريننا وحدنتنا عسليون أنفعين عسينيون هرينوغ عشينيون
حرينو وغاشينو دكانو عراراي عرفكي نكدورو أروتو ينكو بربارينو عرفكي نكدورو أروتو ينكو بربارينو ما انتو بانو دوديستيون إدكار سنكرايو بادي جاي عرينايا ليسكو عاجس معايا جعامها انقلب ويرسي بدين كويسكو عرارها حبنا يوغاسكو حسيسكي نومي كبريا عبادو مهدو غينايا عاغيا لهاني وغاسكين عوالي عمي رويس قربتاقو عافي مدويسو waxaan u imid waa taariikhan lahayn oo dhaqankeena ahayd ayuu baan u imiday inaan nii duceeyo midnimadeennina aan soo celino oo midnimo ayaa ummadda oo dhan wada anfacaysa dadkeena bulshadeenu meel walba way ku nooshahay Itoobiya ku nooshahay Soomaaliland bay ku nooshahay Djibouti bay ku nooshahay meel walba midnimadeena inuu ummadda dariskeena midnimo kula oo dad walaalaan nahay ayaan halkaan idiga sheegaya wax walba waxa lagu gaadhaa midnimada marka la haysto la xajisto unba horumar la gaadhaa dhaqaalaha wax walba waxa lagu gaadhaa midnimo haddaynan haysanin waxba la gaadhayn nabadgelyada inaan ilaashano oo dadka dariskeena xaq dhowrno oo ilaahay dartii u walaalowno ayaa loo baahan yahay waa magaaladii taariikhda ahayd oo awoowayaashay ugaas nuur oo halkan ingiriisku markuu dhulkeena ku soo duulay ay halkan kaga saxeexeen warqad saanta ay kaga saxeexeen weeye ingiriiskii markaa dhulkeena ku soo duulay ay halkaa kaga saxeexeen saanta weeye magaaladeena markaa walaalayaal taariikhda dheer bay leedahay sayl إلهي إذا كي وحني بريا ولا يوم الدبدينا إن إلهي مدودي إلهي نبلغ لما يموافقين إلهي نسيه إلهي قلبي إنه يسكفره ندد ولا الله يسجعل نقله ورمر إلهي ونجارسيه وحوض قبصله إن دكدنا أسنقينا نسمه إلهي إذا كي أنغليرا إن الشقاء أنو أبورنا وإن النه يسكت صوننا وحوض قبصنا يعني إلهي كبريا ربي عانين إلهي نسيو إنما إلهي نسيو وضقبس إلهي نسيو إلهي وإني دعيي قلبي أني قد دعيي يدا أني قد دعيي الله إني بركيو يدا بركة الله إني قليو أساسا أني قد دعيي ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkii dikada loogu talagalay waxaan anagu idin sheegaynaa intiina maanta noo timid horta waan u mahad celinaynaa kolka koowaad waaskaan u mahad celinaynaa inta galbinaysana waan u mahad celinaynaa intii soo dhaweysana waan u mahad celinaynaa haddaan halkan u leexdo ama yahow ugaasow iyo inta la socotay nololi horta de waa arsaaqna waa bad nima aan bad wax uga soo degin waxana ka dhoofin nin ma noqon dikadan waxa laga yaabaa inay dadka qaarkood khalad u fahmaan oo yiraahaan reerka reer hebel la yiraaho ayaa samaysanaya inay yiraahaan baa laga yaabaa ma aha reer hebel ummadda buu shaqaynaya hadduu samaroon bilaabay ummadda buu u shaqaynaya waxaan ugu baaqaynaa inta kale dhammaan Soomaaliland ta kalaba waxaan ugu baaqaynaa cidii ka soo qayb galaysa way u furantahay haday ka soo qayb gali waayaan maalinta la dhameeyo wadikadu ummadda ka dhaxaysay ma aha dikada reer u fulan ma aha sida halo wadikad ummadeed hal ogaado yaan loo qaadan in gobolka awdal u xidhnaanayso dikadani yaan loo qaadan in luqaya gaar loogu xidhay yaan loo qaadan in gadabiirsi gaar loogu xidhay dikadan yaan loo qaadan laakiin ummadda noloshu hagaadho baa la leeyahay ciidii xoog iyo xoolaba kaga qayb galaysa way u furantahay idina waxaan idinka codsanaynaa khaasatan ugaasko
maanta haddaad istaagtay tii hore sannad bay qaadatee dhammaadkeegu kugu dadejin mayna dhammaadkeeda bilowgeedaan kugu dadejinaynaa ugaasu ilaa 60kii baan calan qaadannay bal mustacmarkii iskaba jooji waxbuu inoo qabtay waxbuu inoo qaban lahaa iyo wuxuu inoo qaban lahaaba isagoo hala maqnaado dee ilaa 60kii iyo halkii aan joognay baan joognaa 60kii halkii aan joognaan joognaa waxaasina waa tafaraaruq waxay naga keenay waa tafaraaruq maanta waan ka duwannahay Soomaali weyn Somaliland baan ayaa la naydhaa Somaliland horumarkeeguna wuxuu ku xidhan yahay hadday waddo tahay hadday deked tahay hadday iskuul tahay hadday waxa weeyaan isgaarsiinta ayaa wax walba ka qiimo badan ilaahay maanta ugaaskeenna muu noo keenay haddaad tii hore sanad sugayseen annaga tani muddo yaroo gaaban baaninammadiisa yimidena waan saragnay oo waan ballansanayn dabadiina intii iyo boqolaal kale ayaa ka jooga ugaaska ka dambeeyay war xadhig baa wax lagu qabsadaa waan isku xidhannay waad salaamantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي إلهي ورد الدنتين نهاي نتصل. آمين آمين. إلهي الدنتين نهاي نتصل. آمين. أمدهم علامة قيس واللي بليه قبائل واللي بعلامة بوليه علامة دين والنجا وحوي وقاسنا ما هذا علامة دين علامة دين ناسي كل كان قمتنه وحول اللي بوي إنه فقدان يعني لكن ما ضحى الله قد جانا يا وحوي وقنتن ما ها وحكلوا له جد دت كاس وارن كيس كوسو ريا يا كلسوني ويا كلسوني دي هدان سميسني وحول اللي بورث وين إنه سخن مياه وحنا ذا وقف فكرتان هريرهن سيد اللي نقول يهاي هي إنه سيدان كنا الله دمر عرفورس يا دت كمد وانا يستاير يعني dadka kama duwanee nolosheenna ogtiin halkay ku joogto midnimadeena cid diidani waa cid aan nolosheenna doonin dibadii baa nala wareeriyay ma gaadheen taa waxaan ahayn maanta lama hayn ilaah baa oginaan lahayn nin walba ninkuu garanayay buu la hadlayaa iska daa ugaaska inta ku xidhan ee la hadlaysa annagii baa dhagihiinna dilaaceen waxa weeye ilaahayna wuu inoo sakhiri aan ducaysanno midnimadeena aan adkaysanno ترسي واحد وقاتان إذا صفى الناس صفى الناس وإذا فسد الأمراء فسد الناس هديد ضد هاد أركتيد وعلن يعني هو قال كحل والنوع من الجنون يكون جيرانه لو ما حسابي كانوا أمضي يعني ما ارتعاف ما غلط هدي هاد أركتيد هو قال عادي لنا صفى الناس تدخيو وظل شاطئا oo isku xidhan oo yaani maartay iyada arkaysaa quruxdu halkaas ka soo baxda intaasaan hoggaan lahayn wixii aynu sugaynay inta aan u yeedhaynayna maanta Ilaahay noo keenay ya hadii Allah noo keenay tamasugiisa iyo qabsashadiisa iyo yaani maartay xilka oo waajibaadka oo raacno inbay lagu waajiba ya wataalay noo furay dariiqi intaas ay ugu xaynayna waxa inta naga joojiyay wuxuu ahaa يعني هجان لعان بهاي ما تان هجان هينا سكر بس قرآن تم حكليت طريق بس أول مرة وكذب سلامي يا ما حيكون جبني سوا موافقه يا تبغى كإلهي هجان كني نو كإلهي كي أن نفعل الله نوغيه شريعة شاشان الله نوغيه شرف دمانتين الله كشومه حسد كنا تبغى الأركيسان النقبة نولشينا يا كساو أركيا هالكا يعني ما تنولشي أمته هيكون حدن تيسر تاجية تبغى الأركيسان تدوينه وارفو يا أركينا تواجب كيس أنا قاضنا إنها ثانا ووجوجنا بارت نولشي هذا والسلام. هدي بني آدم كو كان في عن يكره الضمبين يأسوا كرسونا إسماعيلستان والدلال لك خضران ويجاران ماشى الدوريات تاسيوا واحد لجود أوجي هاي علمية بني آدم كأغلق بني آدم كيدي بها بلجود أوجي هاي ويان دقا يرى واحد كأنه كبضن إربط
haddaad kor u qaadid waddanta guuda lagugula dhegayo dhinaca lagula qabsanayo waxaan odhan lahaa war dhaqankaan iska dayno ciddii danta guudna aynu ka hormarino tan gaarka ah waayo tii gaarka ahayd wayna wareerisay inoomana shaqaynayso markii tii guud farax aan kala baxnay waxaan inagu dardaari lahaa danteenna guud aynu qayb ka mida danaha iyo hawlahaan ka shaqaynayno aan ka dhigno waa run dekadda muddo dheer baa la hadal hayay ciddii ku anfacan doontana haddii la sameeyo ilaahay baa og ummadda oo dhan baa ku anfacani somalilan oo dhan baa ku anfacani etoobiya ku anfacani jabuuti baa ka anfac dadka dhulka degan oo dhan bay horta anfac u wada tahay dekadaha iyo waddooyinkuba laba kale lahaa cid kastoo horumar danaynaysa waxaan odhan lahaa marka la iclaamiyo inay shacbigu wax dhistaan cid kale maaha waa shacbiga inay wax isku dardarsadaan oo ay dhistaan la doonayay cid kastoo iclaamkaa maqashaa inay gutiga dhiisha iskaga dhigto waa dan guudee wax ku darsato ayaan aad idinku xoojin lahaa goorta la bilaabo insha allah waana la bilaabi midnimo iyo sharafna waan inoo rajaynaynaa barwaaqaan inoo rajaynaynaa waxaan inoo rajaynaynaa ducadeennu ilaahay naga aqbalo roobka uu daawo abaaruhu dhulkani abaaraha ku batay baryahan dambe naga yaraadaan baan insha allah rajaynaynaa halkani waa sanadkii hore halkii ay dhagaxa dhigeen ardaa ururka markaasi isku xilqaamay in halkan dekedeennii laga dhiso oo ummadeenna dhaqaalihii ay u soo celiyaan haddii la haydhaa dhaqaale meeshii laga heli lahaa maadaama deked weeye aan nidhi waa hungurigii meeshii ay cuntada u soo maraysay marka goobtan aan joogno waa halkii ay sanadkii hore dhagaxa dhigeen anna waxaan sii xoojinayaa biidmillaahi kariim inaan dhammaan dadka dibadda jooga iyo gudaba in halkaasi xoogga la saaro oo dadkeennii looga faa'iideeyo haddii la haydhaa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo cid walba markaa ka anfici doontaa haddii la haydhaa